sida arkaysan waxaan la joognaa walaalkeen Garaase waa nin Soomaaliyeed oo dalkan degan oo aad ka warhaysaan xaaladiisa iyo caruur ka maqnayd kadibna isaga dalka laga dhoofinayay maanta maalin farxadeed waxaan la kulmay isagoo afartiisa caruurta la jooga xarun ku taala xaafadda Greenland waa farxad waxaan weydiinaynaa Garaase dareenkaaga naga hor الحمد لله مركو ورئيسة ونحمده ونستعينه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وحمد إسكالا إيبي سبحانه وتعالى سي دسكن إلى فدية أو أفرته تاس إله وما جعلنا يكون وإحنا ترى أمود سوماليت واحترمنا الله كبيره سيرونتا ومال فرحة وين وأن لكم مي دسك إله سي أيجينا وأكون أكفدي سيدا ماركتامبا ومال تاريخي أو محاكور هذا لوانا كديف مركي اللي المهجن ولا يعرف بيها ودنا كان سيبح أيها ماركتا نسيبنا وحنا سيدي الجد اللي قبتي الله هذا لو بلد بلد جوجا وش اللي تمنى ده دبيا قدري marka laba bilood baa hadda lagu joogaa intii liiro waddanka oo raadinay oo wanted aan ka ahay dadkan dunida ilaahay siiyana la rabo in la kala fogeeyo oo laga lumiyo oo aan kala lumno laakiin wala joogtaa ilaahay qoran maanta waa la fadhiyaa waa la joogaa goorma kugu dambeysay aragtidooda aragtidooda waxay ugu dambeysay sanadkii horeeto bishii 8aad baa ugu dambeysay afartooda waxa ugu weyn ninkan la yiraahdo Saciid Garaash Cabdullaahi waxa ku xiga ninkan la yiraahdo Cabdulqaadir Garaash Cabdullaahi Farxaan Garaash Cabdullaahi ayaa ku xiga Maryam Garaash Cabdullaahi ayaa iyadana ugu yar marka Maryam marka ismiil Sifrahan marka alxamdulillah ummadda Soomaaliyeed waa ku maasantihiin dadkii iga caawiyay in maxkamad dib u dalbado oo aan dadkan haddii la yiraahdo ilaahay isii ku soo ceshto wuxuu ilaahay siiyana qofku wuxuu rabbi siiyana cidna kama qaadi karto wuxuu ilaahay u diidana cid siin karta malaha markii hore oo caruurta ku imaan jireen waa la socon jiray maanta kaligaa lagu siiyay caruurta kaligaa la jooga maxaa isbedelay jaal xasan horta wariye xasan waa maasantahay sidii kaalinta lahayd uga soo qayb qaaday iyaga loo soo qayb qaadatay halganka iyo maxaa ku dhaha baahinta qisadan igu dhacday dhammaan saxaafadda Soomaaliyeed haddeertaana maxaa ku yiraahdaa maanta nasiib wanaag waxaan nasiib u yeeshay markii labaad inaad iga qaado waraysi oo aan la fadhiyo duriyada ilaahay siiyey alxamdulillahi rabbil caalamiin marka waa ku maasantihiin sida maaragtay iga caawiseen waxaan noo sheegtaa qarashkii ku baxay maxkamadaas oo ahayd 150,000 oo waliba waxaa aad u mahadcelinayaa gabdhaha la yiraahdo ummahatul khayr oo si fiican igu bintaday oo lacagta inta badan iga bixiyay waan ka mahadcelinayaa duriyada Soomaaliyeed oo ilaahayna siiyayna waxa weeye oo islaamkaan ilaahay waxaan ka baryaa inuu islaamnimada ku soo celiyo oo dalkooda iyo diintooda ku waxtaan ilaahay duriyad baaran Allah nooga dhigo waxaan rabaa inaan ku weydiiyo afartoodii waa la joogtaa maanta waa sidee maxaa iskula hadashaan luqadda Soomaaliga sidee ku yihiin luqadda Soomaaliga ah in muddo ah kuma aysan hadal bulsho Soomaaliyeedna ma aysan ku dhex jirin markii laga qaaday ninkan baa ugu weynaa Saciid ah wuxuu jiray 10 sano ninkan kale oo maanta 17 jira 16 jira 6 sano markii ninkan wuxuu ahaa 9 sano marka kuwana maba aqoonin ba Soomaali oo gabadhan 2 sano jirtay wiilkana wuxuu jiray maxaa ku raada 3 sano marka waa iska imaanaysaa Soomaali ma aysan aqoon luqadda waa iska imaanaysaa way isku fahmnaa saacado badan baa hadda aan kula joogay aan kula socday waa la qadaysay waa wareejinaysay imase saaca intaadan dirin aad haysanaysaa xageesa ku nool yihiin waxa weeyaan nasiib wanaag maanta waxaa u yeeshay in gabadha ilmahan hayso oo la arki jiray 3 saac oo waliba niman maaragtay la kala ilaaliyo waxaan ku wada hadlaynay inaan leeyahay sii soo laabtay iyo aabaana macnaha waxyaabo noocaas maanta kaligaa wala maanta kaliya waa la kulmay ma sha Allah bal aan la hadlo aan Saciid Abdallah jag är onkeln och hur känns det idag att vi möter pappa? Okej. Det var gott? Ja. Okej. Det var länge sedan? Ja, det var länge sedan. Slack håll till pappa. Och så är du väldigt glad att möta honom Ja, idag? det var jag väldigt glad. Okej. Kommer du att fortsätta? Ja. Det kommer att fortsätta. Adela, är du glad att möta pappa? Ja, väldigt. Du då? Ja, väldigt glad. Med mig till mig däck. Är du glad och med mig i safari? Inte sant, ja. Du är väldigt glad att möta pappa, ja. Och du är Elsa, inte sant? Ja. Du heter? Said. Said.
Hur gammal är du? 18 år. Du blir 18, ja. Du blir 18 snart. Styrgut, ja. Ja, okej. Så snart ska du ut och jobba? Ja, snart ska vi det. Okej. Hur känns det att du sitter med pappa idag med andra bröder och syster? Ja, det var kjempegøy. Ikke sant? Kjempegøy å få med til pappa. Vet du var vi är idag? Vilken bydel? Vi er i Grønland, Grönan. som har vært der før min pappa for lenge siden. Du känner till det? Det är Grönan här? Okej. Och så kan bara spara dere. Ja. Pappa har bott här länge och dere har hört säkert att han blir utvist från Norge. Ja. Vad tänker dere när dere hör att pappa skulle utkastas från Norge? Det er trist. Det er trist. Ja. At jeg har tenkt å sende ut pappa. Det blir liksom det blir rart å miste faren, liksom. Men det er pappa. Det blir en helt annen følelse. Du vill inte det? Nei. Du har ju lilla syster här. Dere bor ju i forskjellige sted, ikke sant? Ja, de tre bor sammen. Du bor i andre sted. Har du kontakt med de andre, du? Som er eldre? Du ringer ofte? Og så besøker vi andre sammen. Ikke sant, ja. Okay. Lycka till och dere är ju från Somalia och dere bor i Norge. Pappa har väldigt vanskelig och dere ska hålla kontakt med pappa, ikke sant? Är det greit? Vi skal... Ja, det är väldigt fint. Grazie, good luck till Små med lilla jenta också. lilla jenta. Hej! Hej! Snackar norsk. Ja. Grazie, good luck till och ku duceynina. Waxaan ku leenahay nabadgelyo. Och så säger vi till dig lycka till i framtid och det är väldigt glatt och vi är väldigt förnöjda liksom innan carruurtaada maanta la fadhiso aad idin salaamayna waa mahadsantahay ما قال لي وليبا أمد سوماليين gaar ahaan gabdhihii ururka umahaatul khayr iga caawiyey maxaa ku dhahay lacagta maxkamadda dib oo 150 kuna marka insha Allah waxaan rajaynaynaa Soomaalida waxaan ka codsanayaa walaalay Soomaaliya oo muslimiinta inay u duceysaan in Ilaahay uu dawladdeeda uu dib u soo celiyo oo islaamnimadoodana Ilaahay idinkiisa uga muslimnaa Ilaahay ka dhigo waa mahadsantahay ku caruur Soomaaliyeed oo maqan Ilaahay inuu islaamnimada ku soo celiyo waa mahadsantahay thanks